waa mar kale iyo Jubbada Hoose dadka reer Jubbaland gaar ahaan kuwa ku nool deegaanada ku dhow Raskamboni ee gobolka Jubbada Hoose oo ka xumaada dhacdadii ka dhacday magaaladaas iyo mas'uuliyiin ka tirsan dawladda ayaa abaabul xoog leh waxay ka wadaan deegaano kale dhacdooyin cusub oo ku saabsan xaalad Jubbaland ayaa idin la wadaagi doona haddii aan nagu cusub tahay nagu soo biiro kamid noqon saaxiibada nagu xiran wararka aan ka helayno deegaanka Kulbiyo ee gobolka Jubbada Hoose waxa halkaasi gaaray gudoomiyaha degmada Badhaadhe Maxamed Fanax oo dhawaan taageeray dawladda federaalka ah ee Soomaaliya kadib markii uu gacan geliyay Raskamboni garoonka diyaaradeed ee ku yaala iyo maamulka magaaladaas ninkan oo hore u sheegay inuu dawladnimada Soomaaliya aaminsan yahay inay xaq u leedahay inay ka shaqeyso meel kasta oo dalka Soomaaliya ah oo aan cadow gacanta ku haynin ayaa dawladda u suurtageliyay in Raskamboni ciidamo ay geyso kadibna waxa uu ka mid ahaa saraakiishii hogaaminaysa howlgalkii halkaas ka dhacay inkastoo ay Jubbaland ku gacan sareysay dagaalkii Raskamboni hadda isaga iyo ciidamo kuwa deegaanka ah waxay ku sugan yihiin Kulbiyo oo gobolka Jubbada Hoose ah waxa halkaas kulamo kula qaatay mas'uuliyiin kamid ah dadka deegaanka iyo sidoo kale saraakiil ciidan waxa ayna dhamaantoodba ka midaysan yihiin aragtida ah in dawladda Soomaaliya mudneen wixii ku dhacay iyo sidoo kale in dadka reer Jubbaland gaar ahaan kuwa ku nool gobolka Jubbada Hoose ay mas'uuliyad ka saaran tahay sidii ay dawladnimadooda ugu shaqeyn lahayd deegaanka kooxda argagixisada al-shabaab looga xigsan lahaa deegaanada ku yaala xuduudahana ay ciidanka qaranka Soomaaliyeed u joogi lahaayeen maadaama uu dhigayo dastuurka dalka u yaala abaabul iyo isku dabarid ayuu mar kale ka bilaabay Kulbiyo oo gobolka Jubbada Hoose ah waxaana sidoo kale suurtagal tahay in ciidamadii dawladda ee gala gudaha Kenya ay dib ugu soo laabtaan gudaha Soomaaliya halkaasina ay mar kale dawladda ku qalabayso waxa soconaya dadaal u dhaxeeya dawladda Soomaaliya iyo dawladda Kenya kaasi oo lagu warinayo in qorshaha ah in dawladda Kenya ciidamadaas laga soo daabulo oo Muqdisho la keeno dawladdu ay bedesho sidoo kalena laga dhigo in dawladda ciidankeeda ay ku soo geliso gudaha Soomaaliya halkaasina mar kale lagu qalabeeyo howlgal military oo ka bilaawdo Maxamed Fanax waxa uu dadka deegaanka u sheegay in dawladda Soomaaliya wax kasta oo ku dhaca ay tahay dhibaato soo gaari karta dadka Soomaaliyeed waqtigan la joogo 2025 maalmo dhimantaana aysan suurtagal ahayn in ciidan Soomaaliyeed iyo maamulkii dawladda dhexe ay ka shaqeyn waayaan dhul ammaan ah oo ay joogaan ciidan Soomaaliyeed oo calanka dalka xiran arrimaha khilaafka siyaasadeed ee la isku haysto ayuu sidoo kale dadkii oo la hadlay oo Kulbiyo ku sugan ku sheegay inay yihiin arrimo maamul oo ay u taalo dawladdu iyo maamul goboleedka Jubbaland inay go'aan ka gaaraan laakiin midda saxda ay tahay in ciidanka Soomaaliyeed xaq u leeyihiin inay ka howlgalaan meel kasta oo dalka ah si gaar ah waxa uu sheegay deegaanada ku yaala xuduudda dalka Soomaaliya iyo amniga dalkaba mas'uuliyadda koobaad inay ka saaran tahay ciidamada qaranka dadka reer Kulbiyo oo gudoomiyaha soo dhaweeyay in ciidankiis ayaa ilaa hadda halkaas oo degan yahay Badhaadhana waxa ka mid ah deegaanada hoos yimaado oo gudoomiyuhu ka ahaan jiray Maxamed Fanax deegaankan hadda uu ku sugan yahay oo Kulbiyo iyo sidoo kale Raskamboni iyo deegaano kale oo isla gobolka Jubbada Hoose ka mid ah wali dawladda Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland heshiis kama gaarin dhacdooyinkii ka dhacay Jubbaland oo sababay ilaa inuu dagaal dhaco oo labada dhinac ay ku dagaalamaan magaalada Raskamboni ee gobolka Jubbada Hoose magaaladaas oo dib ugu laabatay gacanta maamulka Jubbaland dawladda Soomaaliyana waxay sheegtay in ciidamada aysan qabin amar ay ku dagaalamaan oo aan hayn oo kaliya inay kooxda al-shabaab iska difaaci karaan sidoo kale dawladda Soomaaliya waxay kale oo sheegtay in Paris la sameeyay ama Paris socdahay ay ku ogaadeen inuu jiro xiriir ka dhaxeeya hogaamiyaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Isla Axmed Madoobe iyo kooxda al-shabaab doon xoog leh ayaana jira oo muujinaya wixii ka dhacay Raskamboni inaysan kali ku ahayn Jubbaland ama al-shabaab ku taageereen ama dawlado kale ay ku gacansiiyeen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo safar dalka dibadiisa ku maqnaa ayaa Muqdisho dib ugu soo laabtay waxaana jiray saacadii la soo dhaafay kulamo kala duwan oo isaga iyo ra'iisul wasaaraha wasiirka amniga saraakiisha xoogga dalka Soomaaliya iyo kuwa kale ee adaha ammaanka u dhaxeeyay kuwaas oo dhamaantood ku qotoma xaaladaha ka soo cusboonaada Jubbaland iyo talaabada xigta oo ay qaadi doonto dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo maalintii shalay ka hadlayay Muqdisho waxa uu sheegay in aysan marna socon doonin oo aan la aqbali doonin wax uu ku sheegay dabadhilif basaasiin iyo sidoo kale cadow kalkaal oo ama al-shabaab taageera ama dawladda iyo ciidan ajnabi ah taageera ra'iisul wasaaraha oo ay ka muuqato sida uga qaracan yahay wixii ka dhacay Jubbada Hoose iyo sidoo kale tallaabooyinka xiga oo Jubbaland ay qaaday waxa uu sheegay in dawladnimada Soomaaliya ay joogto waqti aan loo hanjabi karin sidoo kalena aysan joogin waqti aan loo diidi karin in dalka meelo kamid ay ka shaqeyso xaaladda Jubbaland iyo dawladda federaalka ayaa la ogeyn meesha ugu dambeysay oo ay tagi doonto dhinacyadaas markaan waxay u egtahay in jidkii ama dhabihii dagaalka ay qaadeen labadoodana midkood uu dagaalkaas uu ku guuleysan doono ilaa waqtiga uu gaari doono iyo sida ay noqon doonto ayaa la ogeyn waxaa sidoo kale jirta in Jubbaland cunaqabateyn la saaray durba ay wajahayso dhaqaale la'aan xoog leh
haddii bilooyin kale jubbaland ay marxaladan kusii jirtana waxaaba dhici karta in maamulkaasi xaalad adag oo galo aragtidaada qaybta hoose faalada noogu reeb muuqaalkana sii sheergaree sidee u aragtaa in dowladda mar kale is abaabulayso kulbiyo iyo deegaanada kalena ay ciidamo ka tirsan dowladda ama ciidan dowladda taabacsan ay joogaan suurtagalna ay tahay in mar kale halkaas ay dib ugu soo laabtaan ciidanka qaranka qaybta hoose faalada aragtida ku dhiibo muuqaalka sheergaree aad aad amaasanta soomaalinimada xatal iyo gobonnimadu waxa ma qaadato iska dhaaf wax kale diin iska dhaaf qof Soomaali oo sax ah aqligii baa dadan mahaane markii aqliga dabaysha laga afuf ee Soomaalinimadii kii saxda ay soo baxdo ma aqbalay qofka Soomaaliga waxaas nin ragiina ma aqbaleen suurtagal ma marka maxaa keenay waxaas horay u soo dhacdo taariikhda islaamka soo dhacdo ayaama tatar bay soo dhacday waa ogtihiin dadka markay duloobaan oo la dulaysto taas waxay buujinaysaa way dulaysan yihiin dadku way san dulaysan yihiin waa la dulaystay dulli baan ku noolahay addoonsi waaye addoonsi wax kala addoonsi waa Samson waa addoonsi marka in aan ilaa heerkaas ina gaaro naftan mar bay baxaysaa ilaahay baa bixinay markuu ilaahay ugu talagalo bay dhimanaysaa iska celi waa iska celin kartaa lacagtaad halkaa ugu sii wado dawladda way ku sharciyeynaysaa hub qaada iska celi wasin san ka geli inta cadaabka sii gelis ma shaqeynaysa hub sharciyeyso iska celi waa iska celin kartaa laakiin ihaanadaas inta leeg iyo dullinimadaas inta leeg iyo dadkeena inay saaw ihaanaystaan ganacsatadana inay ihaanaystaan dadkeena micnaha inay ihaanaystaan waa waxa keentay inay dadku dhan wada hoggaansamaan waa la sandulaysan ee halkan waxa la isugu yeeray waxay tahay waran nimanka ma iska celin karnaa mise iska celinayno su'aashu waa taas mise dulligan aan ku sii jiraynaa dulligan annaga dowladda iyo ganacsatada iyo dadka Soomaaliyeed culimada in dheer garadka dhalinyarada gabdhaha Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed meel ka soo joogaan waxa la rabaa inay go'aan gaaraan nimanka iska celiyaan war haddii bulshadii ay qayb lacag siinayso qayb qarinayso qayb logistics oo dhan u qabanayso wiilkeena la soo xidhaa la difaacayo la daba ordaayo maanta la galaayo ciidamada amnigu maxay ku sameyn karaan meesha maxay ka qabanayaan dawladdu maxay sameeysaa dawladdu maxay sameynaysaa dawladdu soo dadka ma aha haddii dhinac lacagta laga siinayo oo dhinac laga qarinayo oo dhinac looga shaqeynayo oo dhinac la wado soo meel dab aan damaynin biyo yarar ku shaqada maanta soo ma aha dabku ma damaayo in maanta la isu yimid oo halkan la isla joogo waxa weeye war diinteennii haddaynu dad muslimiin nahay saanay qabtaa war dowladeennii haddaynu dowlad leenahay saanay leedahay shuruucdeenniina saanay dhigaysaa war haddii aynu shacabkii nahay maxayna la gudboon marka haddii aan ganacsatadii nahay maxayna la gudboon noocan hadda loo sheegay oo ah annagu hadee wixii waa leeynaa siiqatu tamriidka sheekh loomba siiqatu tamriidka wax loo gudbinayo loomba xayawiye raganima loo baahay nimankan waxaan u baahanahay ganacsatadu safka hore inay soo fadhiisato shilin in siin ma leeyahay banaanka la istaago kadibna dawladda waxa loo diro halkan uu joogaa uu soo hadiday meeshaas uu joogaa telefoonkana ayaa ay dhibay qofkana ay hadiday meeshan uu qabanaya dawladana waxa waajib ku ah shaqada inay qabato dadkeeda inay difaacdo in laga hortago hay'adaha amnigu inay dhageystaan oo meeshan uu khatar ka jirtaa markaba in la tago oo dadka la badbaadiyo in sida amniga dadka gaar ahaan ganacsatada in laga warhayo la dhowro in taas micnaheedu ma aha inay aan leenahay ganacsatadu nimankan bay la shaqeeyaan maaha